واي حسبك ودني hablaha ku jira ay u siin waayeen golaha hablaha agaasimayaasha institutions waa su'aal u baahan jawaabteeda laga helo marka waxaan anigu ku sheegayaa xisbiyada Somaliland waxay total albaabada ka xireen hablaha Somaliland inay ku soo dhex koraan siyaasadda dawladaha isbedelayay dhamaantood waxay ka sinaayeen hal shay waxay ka sinaayeen dawlad kasta inay ku ololeyso markay doorashada galeyso buugeega ay ku qorto inay haweenka siinayso saami 30 boqolkiiba ah hadhow toolana lama helo dhaqankaas lagu ololeeyo ee hadhow toolana aan la helin ma la oran karaa xilliga doorashada dumarka waa la khiyaamadeeyaa marka hadhow toole dharigu u bislaadana cid kala cunta rabitaankii hankiina kuma jiro mana doonanayaan waxaana laga yaabaa imka maanta waynu isweydiinayno agaasimayaashaas inaanay doonan baan malaynayaa de mala amaanay haweenba doon bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu nabad daawadayaal idinhaantiinba meel kastoo ka joogtaan daafaha adduunka ku soo dhawaatay TV Home Cable TV iyo barnaamijkeennii masraxa haweenka barnaamijka waxaan idin daadihin doontaa anigoo Nimco Maxamuud Axmed Sidaara barnaamijkeena caawa waxa martay inoogu ah Muuna Bile oo ah gabadh dhalinyaro ah oo siyaasiyada oo in badan arrimaha bulshada ka soo shaqeysay Muuna waxaan weydiin doonaa su'aalo la xiriira xukuumadda hadda miyay ka heleen saami qaysigii ay ka filinayeen haweenku Muunay waxaad noogu bilowdaa magacaaga iyo taariikh nololeedkaaga in yaro faahfaahsan bismillaahir rahmaanir rahiim walaal Nimco marka hore waan ku salaamayaa aadna waad ugu mahadsantahay barnaamijkan aad igu soo casuuntay sidoo kalena aad baan ugu mahadcelinayaa Home Cable TV aniga magacaygu waa Muuna Bile Xirsi waxaan ahay inaan reer Somaliland dugsiyadeedii hoose dhexe ku baratay Somaliland kamid dadka u tagay waxbarashada wadamada dibadda soo baratay dhaqaalaha iyo baananka taariikhdeeda kullee iska koobanto intaas ma ku soo koobiyaa noqotay qayb ka noqotay siyaasadii waqtiyadii dhaweyto ururadii la furay waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koobaad ee urur siyaasadeedka Hilaac markii dambena waxaan ku jiray hogaankii ururka Hilaac waxaan ahay qof ka shaqeysa waxyaabaha dhaqaalaha iyo baananka waxna ka qorta haddana waxaan gacanta ku hayaa researcho khuseeya dhaqaalaha iyo sidii xal waara loogu heli lahaa dadkan xaaladaha adag hadda ku jira saboolka hadda gacanta ku hayaa waanad ku mahadsantahay walaal barnaamijka Muunay waad mahadsantahay waan u soo noqon doonaa inaan wax ka weydiiyo researchkaaga balse caawa waxaanu diiradda saari doonaa arrimaha haweenka doorashooyin hadda ka soo baxnay dumar fara badan ayaa ololihii galay dumar baa si u ololeynayeen reerahoodii qoyska kaga dumay oo lagu furay dumar baa dahabkoogii iibiyay oo maxay ahayd ku bixiyay ololihii dumar baa waqti fara badan galiyay haddana dumarku iyaga waxaa soo maxay juhdiyay waqti galiyay ururada siyaasadda waxaad moodaa imika waqti xaadirkan oo lagu jiro xilligii dawladda madaxweynaha hadda talada haya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inay dumarkii ay muujinayaan cabasho ay ka muujinayaan saami qaybsigii haweenka arinta maxaad kala socotaa walaal waan la socdaa arintaas madaxweynaha hadda talada haya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi wuxuu ku jiraan horta dawladda iyo dawladdiisa iyo xisbigii wadani si la soconay 13 November wixii ka dambeysay iyaga doorashadii ku guuleystay sidii caadada ahaydna madaxweyne kasta markuu xil qabto wuxuu soo magacaabaa systemkiisii dawladnimo ayuu soo dhistaa golihii wasiirada iyo agaasimayaashii iyo hay'adaha qaybo kamidana hadda waa la soo magacaabay maanta ugu dambeysina ciidamadii iyo baa la magacaabay waa run oo de waan la socday media shaashadan kala socdaa in hablaha iyo haweenku aad ugu yar yihiin oo de intii laga filayay iyo rajadii ay habluhu ka qabeen ay aad u yar tahay waan dareemayaa golaha wasiirada wuxuu lagu soo daray 3 hablood oo iyagu kamid ahaa dadkii xisbiga wadani aadka u ololeeyay ka shaqeeyay wasaarado muhiima oo ay hayaan hadda habluhuna way jirtaa wasaaradii qorsheynta planningka oo wasaaradda ugu muhiimsan ee ugu quwadda weyn Somaliland hadda qof dumar oo de wax baratay oo aqoon oo systemka dawladda ku jirtay ba gacanta ku haysa
wasaaradda qoysku awalba haweenku hayn jireen inta badanna gacanta lagu hayaa wasaaradda wasiir ku-xigeenka caafimaadkuna waa haween sidii aan kala soconay miidiyaha laakiin systemkii kale ee dowladnimada ayaad moodaa inay gebi ahaanba dee haweenkii ka maqan yihiin taasu dee wax dumarkii oo dhan ku noqotay kolley boo ku noqoto dee ka mid baana kolley kuma farxin waan jeclaan lahaa inay haweenka laga siiyo fursado aad u ballaaran laga siiyo hablo badan baa jiro dee xisbiga wadani la soo dhintay oo weliba waqti badan la soo bilaabay waqti hore la bilaabay oo la soo shaqeeyay kolley waxa carqaladaha iman karaya ee sooran karayna sidoo madaxweynuhuba sheegay qoraalkiisii uu soo dhigay raaligelinta ahayd ee hablaha uu raaligelinayay waxaan u fahmayay qoraalkaas inay tahay in hadda systemka dowladnimada inay lug ku leeyihiin oday dhaqameedkii oo habluhu iyo haweenku markooda horeba cabasho ay ka qabeen oo ay lahaayeen qaabka ay wax u dooranayaan anaga waxaad moodaa inaanu ka maqanahay wajinde siyaasadda markaad ku jirteed soo aad in badan ku dhex jirto xoogaa ilaa 2 sano iyo xoogaa waan ku dhex jiray waa wax arki karayso oo waxaad moodaysaa inay xagga haweenka Somaliland markaad aragto oday dhaqameedka iyo dadka inta badan environmentka oo xagga ragga u badan inayna xagga aaminaad iyo kalsoonaantii ahayd inay habluhu wax qaban karayaan inayna wali halka gaar levelka aan wali soo gaarin waa dareemi karaysaa wad maasantay muuna madaxweynuhu sidoo kale su'aashayda labaad waxay tahay madaxweynuhu sidoo kale wuxuu magacaabay agaasimayaashii guud agaasimayaasha guud ee madaxweynuhu magacaabay dumarku ma jirin maxaa u diiday bay kula tahay in agaasimayaashii guud dumar lagu arki waayo marka la magacaabay liiskooda walaal agaasimayaasha guud waxay hayeen dadkii ugu badnaa ee ugu dhalinyarta badnaa abi taariikhda Soomaaliland la magacaabo waxay u badnaan dad dhalinyara oo qaybtooda ay yihiin dad de professional oo inamada oo dad wax soo bartay laakiin si qaabka loo doortay ee ahayd in haweenkii Soomaaliland oo ka maqnaadaan de wallahi waa arrin aad looga xumaado way sababtoo dadkii codeeyay xisbiga wadani soo saaray ee mataqaana madaxweynaha soo dhisay hadii 400 ilaa 500 kun oo qof ahaayeen laga yaabaa in 300 kun ay dumar ahaayeen had markaad aragto kuyuyada iyo qaabka dumarku u ololeynayaan iyo qaabka dumarku u mataqaana ay u codeynayaan way ka duwan yihiin ragga waxaad moodaa goobaha mataqaana laga codeynayo wax u badan haweenba u badan sida aan maqaalka ku hayana waxa weeyaan xisbiga wadani waxay ku ololeynaysaa 30% inay siin doonaan haweenka Soomaaliland inay galaan systemka dowladnimada habluhuna waa dad wax bartay oo waa dad local ah oo citizen oo dad reer Soomaaliland iyaga laftirkooda way leeyihiin hamiga ay rag leeyihiin marka arinta keentay in laga gaabiyo ama ay dawladdu gabi ahaanba laga saaray agaamisimayaashii iyo hay'adihii kale ee institutionadii kale ee shaqaalaha la magacaabay bangigii baa ku jira maxay toona hay'ado kale ku jira in gabi ahaanba haweenkii habli laga saara wallahi walaal waa arrin aad iyo aad u farxun sababta isleeyahay way keeni kartaana ee keentayna waxa weeyaan because de sidoo hadalka u dhigay qoraalkaas waxa uu eekay qoraal ah inay ka timaado xagga odayada iyo reeraha ay ka timaado marka hore qofka tagay agaasimaha noqonaya ama institutionka madaxda uu noqonaya de taasuna waxay meesha ka saaraysaa xuquuq dhan oo mataqaanaa ay dumarku lahaayeen oo raggu ama oday dhaqameedku ma soo doortaan hablaha inta badan hablahana waxa laga yaabaa in iyaga laftirkooda ku adkaato inay halkii u mari lahaayeen maybe ay ama codsigooda ama de mataqaan taas laftirkeeduna waxa laga yaabaa in carqalad keento ta kale ee khaladka keeni karta waxa weeyaan haweenkii ka dhex tartamay ama xisbiga dhexdiisa ku jiray maxay heshiisyo la galeen markii ay la shaqeynayeen ay la campaign gareynayeen ilaan wax walba wax weeyaan waa inuu jira somaha agreement waa inuu jira marka iyaga laftirkooda halka waa in wax la iska weydiiyaa ma jiraan haween iyo hablo iyaga laftirkooda wax kula socday oo de wixii ay kula socdeen ka waay ta laftirka in dib loogu noqdo weeyaan de dadkii xisbiga dhexdiisa ka shaqeynayay ama ka ololeynayay laakiin tan ah inay haweenka laftirkooda bila concept bila ujeedo socdaan oo markay de ololeynayaan ay iska caadifad ololeeyaan hadhow toolana banaanka lagu tuuro de taas waxaan xumaynaa waxa in ay tahay in 10 ka bartaan dumarka siyaasadda gala ee ku jira ma la oran karaa waxa weeyaan dumarkii aan ku habboonayn maadaama oonay samayn karin maxay in isla xisaabta wallaahi walaal horta waynu si uma oran karno sina waynu oran karnaa si waynu oran karnaayo hablaha professionalka ah ee wax barata way ku adagtay siyaasadda inay soo galaan aan dhino waa inagu markaan ka shaqeynay ololaha ku jiray caqabadaha ka hor taagan ugu badan ee ka hor taagan waxa imika inamada waxaad arkaysaa inta inaan la magacaabo wadani waan ku arkay way ololeynayeen media ay taagnaayeen dad waxay aan la garanayo aan ma taqaan daaqad ka soo galin weeyaan laakiin hablaha waxa ku adag inay la joojabaan ururkii la shaqeeyaan
oo capacity la dhis qof walba waxa laga yaabaa hablaha intooda ugu badan danahooda ku mashquulsan yihiin hablaha professionalka wali baan ka hadlay anigu wax bartay ee aqoonta leh danahooda inanta ugu wanaagsan inanta haday wax ku tarso dhaqaale wax ku tarta laakiin inan xisbiga ka ololeynaysa oo campaigner ahayd oo public speaker sameeynaysa oo hadlaysay oo maanta systemkii dawladda ka maqan inagu ma garanayno walaal saddexdan hablood ee hadda ka shaqeynayay kaba jooga ee wasiirada Marwo Kaltuun iyo labada dumar ee kale de waxay hayeen dadkii fagaarayaasha ka hadlayay xisbiga oo leeyahay marka aanu hadaan khaldanayn ma arkeenin haween kale ama hablo kale oo dhalinyara oo wax bartay oo de ururka la jabay oo campaign sideen ugu arkay maanta de inamada agaasimayaasha qayb kamid ah iyo de mataqaana iyagu taagnaa de walaal marka imika markuu madaxweynuhu dhisay marka ma la oran karaa xisbiyada iyo ururada jira dhexdooda waxa ka banaan kaalintii dhalinyaradii haweenka hay'ada wax baratay oo kaalintaas waa bay maqan aad iyo aad bay maqantay meesha kuma jirto intaan anigu ku jiray siyaasadda ku jiray laba hablood ama saddex hablood umad ku arkaysaa waana iska cayimnayno dad la iska garanaya baahan dadka laga yaabo inay carqalado fara badan ba horta haweenka ku gadaaman oo walaalo aad u adag markay noqoto xagga siyaasadda carbin badan baa jirta ragga dhexdooda korto aad kula jirto tartanka cadaadis baa kaaga imanaya carqalado fara badan way jiraan laakiin dawladdu qofku isku dayay inuu carqaladaha ka gudbi karayo marka inaga hablihii professionalka aha ee aqoonta laha ee ahayd inay bushgareeyaan iyagu halka xisbiyada horta xagga hoose ka soo galaan baa meesha ka maqan oo kaalintaas way maqan waa sax ma la oran karaa imika waqti xaadirkan xukuumadda mudane maxamed cabdiraxmaan cabdilaahi ciro iyo xisbiga wadani dhismahan ay wadaan walow imika aan dhismihii xukuumaddu aanu dhammaan oo weli uu socdo ilaa hadda waxa la magacaabay wasiir ku-xigeen iyo laba wasiir oo haween ah oo shaqo galay hawl galay ma la oran karaa dumarkii kale xisbiga ku jira ee hanka lahaa waxay dareemayaan inay dibadda ka yihiin way dareemayaan oo wayba ka yihiin dibadda waynaga arkayna inay inkastoo aynanu arkaynin hablo ama haween way yaraayeen haddii jiraana in frontka ku jira ma xagga dambe horta way gashtaan laakiin habluhu qaladka ay leeyihiin baa waxay waxna waa wax aad muuqdood arkaysid oo de fagaara ka hadalka iyo campaign iyo waa horta siyaasadda walaalo anigu si intaan ka aqaano oo aad u kooban waa la ii ogyahay la ima ogama waxna la isma siinayo qofna wax iska adoo iska taagan de hadid kuma siinayo wax walba waxad goosatay dagaalkad gasho marka hablo wax ku dagaalamaya oo aynu garanayno oo mataqaanaayay gidaarka madaxa la dhacay inagu maynu arkin oo miiriyo duubayo oo dagaal ku jira inagu maynu soo arag magaranaysa waxan waa dagaal meel ba tagaysa tuulo dhan ba tagaysa lagoonay codka keen ama dad la shaqee dadka wad iska horimanaysa oday dhaqameedka wad iska horimanaysan marka hadaa tahay qof aan dhaafi karin marka qaar ba ayaa la oranayaa nimco ma dhaafi karno oo de mataqaana waxaasna waa adigu waxaad samaysan karto marka shaqo ay tahay habluhu inay samaystaan xisbiga ku jir laakiin waa inaad shaqo samaysaa waa inaad samaysaa inaad tahay qof saameyn leh ku soo fday waa inaad saameyn ku dhex yeelan kartaa xisbigii ama meeshii aad ku jirtay marka hablaheena waxa ka maqan saddexda hablood ee imika ku jira wadaniga wasiirada laga dhigay de hadana khaldanayn waxay haayeen hablo saameyn kuloon arkay oo meelo sare kaga jira bay hayn marka saameynta laftarkeedii marka maanta laba agaasimo la kala dooranayay haween iyo laba qof oo kala inaan la kala dooranayo inuu kuma fadhiyo campaign buu galayaa oday dhaqameed buu la soo hadlayaa intaas oo silsiladood buu isku soo xidhanayaa de hablo inay saas sameeyaan Soomaa sometimes hatta in madaxweynaha la dhaliilo qalad markan anigu wax ka waay anigoo muna hadan maanta wax ka doono oo ku dagaalamo oo wasiir hebel baan doonaya oo hadhow toolaan ka waayo de waxaan kula doodanaysta waxa madaxweyne waan ku yimid waan ku waan dooday wasiir baan ka soo doontay wadiidid de marka wal laakiin aniga aan doono adoo iska fadhiya hadayna waanu ka maqanay hadan intaan ka soo fadhiisan nimay kula waan ka maqanay horta ma doontaan habluhu su'aasha meesha talada question is iyaga inooga soo jawaabi doona hablaha waxay ka sugnaa hadii inooga soo qora miyaad doorateen miyaad xilkii doonateen mise miidaan doonan waa su'aal u baahan yahay qodheed in la isweydiiyo muna waxaad ka tirsanad urur siyaasadeedka Hilaac waxaad ku jirtay madaxda urur siyaasadeedka Hilaac campaign adag baad ururka la soo gashay walow aanu ururku aanu Hilaac guuleysan hadda laakiinse fikir fiican iyo maxay ahayd xog badan ayaad waaqica hadda siyaasadda Soomaaliland aad ka ogtahay xisbiyada hadda mucaaradka ah waa kaahiyo kulmiye inkastoo kulmiye uu mucaarad sax yahay oo ka la filayo inuu mucaarad adag noqon doono sanadaha soo socda
oon imika ahayn ma kula tahay ururadaas macaaridka xisbiyada macaaridka ahi xukuumadda hadda jirta way kula xisaabtami doonaan haddii ay siin weydo saamigii haweenka mise waxa dhici doonta sidii hore u dhici jirtay kulama xisaabtamayaan mana weydiin waxna la iska weydiin maayo nimcooy haddaan hadalkayga halkiisii kasoo bilaabo waxay noqonaysaa horta systemka inay soo galaan hablo saameyn leh markay soo galaan hablo saameyn leh oo dagaal geli karayo oo wax la iska weydiiyo tan maanta ah inagu maanta waxaynu samayn karaynaa oo keliya maadaama aanan xisbigii wadani aanan ka mid ahayn maadaama aanan la soo kaambeyn garaynin dee maanta anu waxaan ka sheega waxba ka garamaayo laakiin qofkii xisbiga la soo kaambeyn garay ka soo shaqeeyey rajo iyo dee mataqaana hididiile ka lahaa su-aashan maanta si fiican buu ga jawaabi karaya waay xisbiga wadani hablaha ku jira ay u siin waayeen golaha hablaha agaasimayaasha institutions waa su-aal u baahan jawaabteeda laga helo maxaa loo siin ma bilaa saameyn bay ahaayeen oo saameyn fara badan baanay ku samaynin habluhu ma waxaan odhan karnaa waxaa garbiyey reerihii iyo mataqaanaa qabiiladii baa garbiyey haddii taasu jirto xataa laftirkeeda waxa weyn inay iyaga laftirkoodu ururka dhexdiisa ay dood ka keenaan haddii aan usoo noqdo mucaaridnimo ma ka keeni doonaan waayo hablaha wax loo siin waayey anigu taa ma qabo taa mid ka weyn baa imika hortaala somalilan oo dhan oo ah golihii baarlamaanka iyo golihii deegaanka waxba kama hadhin sanad iyo xoogaabaa ka hadhay habluhu siday u sameeyaan imika iskugu xidhmaan ay u noqdaan dad isku xidhan oo mataqaanaa leh hadaf iyo vision leh yacni markaad hadaf leedahay waxa weyn inaad tiraahdo waxaan doonaynaa politicska inaynu saameyn ku yeelano not inaan politicska galo waa kala laba inaad gasho inaad saameyn ku yeelato waa different inaad tiraahdo politicska hablow haweeney waxaynu ku heshiinaynaa sanadkaa maanta inaynu saameyn ku yeelano xisbiyada ay iska soo sharaxayaan ha kula xisaabtamaan yacni imika maanta haddaan doonaya inaan golaha baarlamaanka galo muna ahaan oo kale oo wadani baan iska soo sharaxaya dee waa inaan su-aal ka weydiiyaa sideen kugu kalsoonaadaa wadaniyo leanno hablihii kula soo tartamayba ee xisbiga kaala soo shaqeeyey ee dhidilka ku geliyo golihii wasiirada maad geynin ilaan qofna no reason kulama soconayo soo ma waxa weeyaan tilka bay tilka weeyaan marka waxa weeyaan anigu waan ku gaarsiiyey kursiga waan ku gaarsiiyey madaxweyne dee adna markaaga waa inaad mataqaanaa systemkii dowladnimo aan dee kusoo dhex koraa marka waxaan anigu kuu sheegayaa xisbiyada somalilan waxay total albaabada ka xidheen hablaha somalilan inay kusoo dhex koraan siyaasadda marka anu xisbi baan ku jiray urur baan ku jiray sorry dee waan kusoo dhex kornay wax badan baan ku dhex baranay waxyaabo badan oo markaa banaanka ka joogay aanan aqoonin baan imika yaqaana fursad baan helay waxaan garanayaa sida loola macaamilaya xataa nimanka laftirkooda oo baahan qaabkii loola macaamili lahaa because markaad guri iska joogto ama aad tahay qof shaqo kaliya jooga waxaa laga yaabaa inaydan waxba isugu iman laakiin markaad xisbi wada joogtaan de waxbaad isugu imanaysaa nimcoy bood xisbi ururad kusoo jirtay dagaal baa idinka dhexdhacaya waxbaad isku diidaysaan fikir baad isku diidaysaan meel la tagayo shaqo lahaya baad isku diidaysaan ma fahansatay marka horta waxaan oo dhan waxay isku soo xidhmayaan hablaha reer somalilan waa inay ka shaqeeyaan siday saameyn aad u ballaaran ugu dhex yeelanayaan xisbiyada imika jira kow laba inay baarlamaanka hadda aada uga soo dhex muuqdaan oo hablo saameyn leh aqoon hadday noqoto public speaking uma la hadal hadday noqoto karti kale hadday noqoto hablo waxa la doonaya iibsami karaya inay systemkii siyaasadda soo galaan oo wax walba u sacrifice garayaan siyaasadda laftigeeda sacrifice bay ka rabtaa waqti bay kaaga baahan tahay imika xukuumaddan talada haysa cawa waxaad moodaa barnaamijkeen inuu xukuumadda ku yara badan yahay waxaa weli hadhay inaan la magacaabin hay-ado dawliya hay-adaha dawliga ah ee aan la magacaabin ma kula tahay inay dumarku ka soo muuqan doonaan wallaahi walaalo anigu horta waan u malaynayaa say ila tahay sababta horta hay-adaha waxaa hadhayba way yari meelihii miinka ahaa ee ugu waaweynaa ee mataqaanaa dalkuba ka dhaqaaqayay dee intii badna waa la magacaabay haddaba waxaa dadka waxaa hadhay walaal aad bay u yaryihiin maan u malaynaya marka horta dee haddii xataa dumar ka soo dhex muuqan lahaayeen meelihii ay ku kori lahaayeen ee saameynta fara badan lagu dhex samayn kari lahaa waa la wada qaatay imika wax weeyaan waa wax deel la qaatay ma garanaysaa laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan hadda talada hayaa inuu aada awood badan siiyo ama fursad siiyo hablaha aqoonta le maadaamay hablo loo kala yihiin maadaamay dad wax bartay maadaamay ka khibrad badan yihiin waxaan aaminsanahay hablaha iyo nimanka ragga iyo dumarka ayaad moodaa xagga shaqada markay noqoto kaga wanaagsan kaga daacadsan ya marka inuu fursad siiyo oo mataqaanaaye haddii xataa tan dee la waayey waqtiyada dambe leen systemka san maahaanaya waa laga baxaya qayb baa ka bixi doonta shafal kalaa soo geli doona marka inuu ahmiyad badan siiyo oo hablaha dhiso haweenka somalilan inuu sare u soo qaaday isugu oo dabadeetana iyaguna ay ku dhiiradaan ayaa loo baahan yahay taasoo dhanna walaal waxay ka imanaysaa doonashada hadday doontaan habli ay ku dagaalamaan oy waqti badan geliyaan
rabitaankii iyo waqti inaad geliso dadkan jooga ee siyaasadda ku jira waqtigan rabitaankiiba iyo hankiibaan ku jirin rabitaankii hankina kuma jiro mana doonanayaan waxaana laga yaabaa imika maanta waynu isweydiinayno agaasimayaashaas inaanay doonan baan u malaynayaa dee mala amaanay haweenba doonan haddii horta haddaynu dib ugu noqono taariikhda somaliland waxay jirtaa iminka dhowr iyo 60 sano systemkeenu sidan dimuqraadiga wuxuu kasoo bilaabmay dowladdii maxamed xaaji ibraahim cigaal maxamed xaaji ibraahim cigaal kadib dowladdii maxay daahir yaali kaahin dowladdii maxamed siiraayo dowladdii muuse bixi cabdi iyo dowladda imika cabdiraxmaan cir dowladaha isbedelayay dhammaantood waxay ka sinaayeen hal shay waxay ka sinaayeen dowlad kasta inay ku ololeyso markay doorashada gelayso buuggeega ay ku qorto inay haweenka siinayso saami 30% ah hadhow toolana lama helo dhaqankaas lagu ololeeyo ee hadhow toolana aan la helin ma la oran karaa xilliga doorashada dumarka waa la khiyaamadeeyaa marka hadhow toole dharigu u bislaadana cid kala cunta arn 100% la oran karaa walibana inta ugu badan markay dumarka loo tagay imika doorashadii sanadkii dhawtay dhacaysay dee walaal daladaha iyo dadkan abaabulan iyo qaabkay u shaqeynayaan haweenku wallahi waad ka tacajabaysaa yacni habluhu aad bay u diyaarsanaayeen doorashadana kuyuyada dadka ugu horeeya ee subaxa hore soo galay iyaga ahayn amniga doorashooyinkii dhacayna aad bay uga shaqeynayeen umay doonayeen qalalaase iyo buuqimaado safafka ragga markaad aragto ama saf iyo badh ama saf weeyaan laga yaabaa caaqiladan maanta go'aanada gaadhaya ee cidda doonaan dee mataqaanaa keensanaya waxa laga yaabaa inay iyagu maalintii aan kuyuba soo galay ama codeynba laakiin waxa laga yaabaa habluhu inay codeeyeen dee mataqaanaa waqtiga ay badan galiyeen marka xorana madaxweynaha ku dhiiranaya ee inuu siiyo dumarka 30% ku u ballan qaaday doorta madaxweyne geesiyo noqonaya waxaan isleeyahay cabdiraxmaan inuu taariikh cusub u sameeyo inuu ku dhiirado oo aan cidna ku xirin hablaha criteria ka lagu xiriyaa waa problem lano qofkii marka criteria lagu xiro waxa laga yaabaa inaan waqti badan juqdi badan gelin oo oday mar hadana warqad geey hadana dagaal la gal hadana ma taqaana marka laba midun bay taas inay ku suurta gali kartaan haweenku xelaan ama dumarkoo bridge ka jabiya oo dagaal xoog qaada ama de madaxweynaha waqtigan jooga oo isugu intuu dib isugu noqdo dareemo mataqaana carqaladaha iyo mataqaana waxyaabaha culayska haysta dumarku hadaba bridge-ka si u jabin karaan kaba soo qaad xukuumadda waxba way siin weyday kaba soo qaad nidaamyada iyo dawladahan isbedelaya sidoodii bay noqdeen dawlad maxay ahayd kasta way balan qaad 30% balan qaad laakiin ma fulinayso sidee bay dumarku hadaba bridge-ka u jabin karaan aniga waxay la tahay nimco laba shayba dumarku marka koobaad waxay u jabin karayaan markan ay sameynayaan habluhu horta way isku xidhin daladaha iyo mataqaanaa habluhu dad aad isugu xidho weeyaan inay markooda hore horta dadka dumarka ay keensadaan ee xisbiyada ugu jira ama xogayaha noqoto ama gudoomiyaha noqdaan in u dhigan gunaadaan iyagu isku xidhmaan yacni waxaan ka wadaa haddii for example maanta inaan isu soo sharaxdo maanta doorashadii hablaha doorashadii lama gelayo golaha deegaanka ee baarlamaanka lama gelayo majority-ga dadka 2006 soo sanad iyo barkamaan sanad iyo barba ka hadhay almost ma filaya haddii maanta doorashada ay haweenka Soomaaliland dib isugu noqdaan ay tashtaan ilaa waxa cudun Sooma oo qofkii inaad kaarka ugu rido oo iyagu inta iska daayaan dadkan ay daba carrayaan reerahan ay daba carrayaan inta iska daayaan ay ilaahdaan maanta sanadka maanta 10 hablood waa inay ku darsanaa golaha baarlamaanka siday u dhacaysaba waayo cudun weeyaan codkan inaga kaasana ilaashtaan ay ka shaqeystaan ay isku xidhmaanay cid la shaqeynaysa ee ma taqaanaa ay rabtay inay hablaha soo saartaan noqdaan habla saameyn leh siyaasadii ma taqaanaa aad u fahansan oo wax iska celin karaya hadii timaado hablaha baarlamaanka lagu soo daro wuxuu hagaagay ilaa maanta wax kale laga wada doorasho dambe oo xisbiyad dambe waqti dheer weeyaan madaxweyne dambe la dooranaya cabdiraxmaan inuu isbedelo oo isagu ku dhiirado oo ma taqaanaa bridge-ka jabiyo odayaasha ku dhado 10% baan siinaya hablaha agaasimayaasha boqolkiina 5 hablaha wasiiradan siinaya institutionada waaweyn ay kamid tahay duulista iyo hawada meelaha hablaha boqolkiiba sidii wasiir ba Soomaaliland 23 wasiir Sooma 8 wasiir wana 3 hablood iyaguna wax saddex marka boqolkiiba 8 ka waxay ka noqonayaan tiradii guud boqolleyda haynaha 30 leydii boqolkiiba 8 ka noqonayaan maaha boqolkiiba 8 ka noqonayaan horta hablaha Soomaaliland awoodooda iyo quwadooda tusaano ay tusaan in codkooda lagu soo baxay codkooda wax ku soo saartaan la xisaabtanka afku waxba ma tarayo ficil baa loo baahan oo dawladaha dambe iyo dawladda hadda joogta midina ay cabashada dumarka ee siyaasadda wax ka qaban weydo dumarku ma dalban doonaan
maxay dib u eegis ma dalban doonaan dib u eegis ama ma samaysan doonaan kacdoon iyo movement ma samaysan doonaan ay ku jabinayaan bridge-kooga ama habab kale ma u mari doonaan oo ay caqabada taagan ay kaga gudbaan horta caqabada sidii ugu gudbi karayaan kaliya waa inay golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka ka soo dhafaan ha maanta madaxweynahana amar kuma laha awoodna kuma laha inay ku yiraahdaan qasab lagu keen haddii aanay ka imanin hablaha systemka dawladda hadda ku jira iyaguna waa waxa minority weeyaan oo wadad aad u yar waxa laga yaabaa taladooda inaan bad laga dhageysan laakiin haddii habluhu saameyn fara badan ka sameeyaan madaxweynaha intay la kulmaan dib eegis ma ka dalban karaan oo oran karaan madaxweyne waxaan ka codsanaynaa in dib eegis ku samayso xukuumadda way ku oran karaan way la xisaabtami karaan way wareysan karayaan dee imika horta lagu soo dari maayo imika shaqa agaasimayaal baa la magacaabay waxaan agaasimayaashu way dhamaadeen dee marka dambe laga saaro qof un baa la soo gelin karaa laakiin waxaa dhaaftay janiskii ahaa inay dawladda dhisaan waa janiska ugu wanaagsan moogta dawladdii cusub inaad dhisto micno badan bay samaynaysaa moogta xataa dee yar professional inaad dee koritaankaaga xataa qayb ka noqonaysa marka horta imika janiskaas wuu dhaafay hablihii Somaliland aanu intaan arkay inta la soo magacaabayo institutionada inta hadhayna way koobeen oo dee mar walba waa intii u badneed waa la magacaabay janiska u banaan waxa weeyaan inay awoodooda iyo ku tusaan inay yihiin dad codeyn kara horta hablaha codeeyayaashii inay hablaha u codeeyaan sanadkan maanta waa inay dumarka soo iyagoon cidna barin oo koota iyo xubtoona la weydiin horta baloon 10 hablood baarlamaanka dhex fadhiisiya marka 10 hablood baarlamaanka imaadaan golaha deegaanka gobol kastana hablo ay joogaan ama labaha ama saddex noqdaan waxa la dareemi doonaa quwadoodii awoodooda connection inay sameeyaan inay isa soo sharaxaan doorashadii hore kale hadaad xogteeda hayso xisbiyadu cidii diiday bay haayeen xisbiyadu waxay ilaahdeen dumarka waxaanu siinaynaa number 10% markii hore doonayay inay xildhibaanada noqdaan markii doorashada la soo gaaray xisbi kasta wuxuu yiri waxaan siinayaa 2 dumar ah mise may gabadh baan siinayaa buu xisbi kasta dib u noqoto waxay iska soo sharaxday magaalo kasta hal gabadh ay iska soo sharaxday xisbiyada laftigoodu waa ka qayb marka haddii aad eegto problemka hadduu weer noqoto waan yara baaray su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay dumarku mar haddii xaaladdu halkaa marayso iyagu ma samaysan doonaan kacdoon ama wax la yidhahdo movement revolution kacdoon isbedel ma samaysan doonaan dee walaal horta kacdoonkii wuxuu ka imanayaa aniga fikirkayga kacdoonku wuxuu ka imanayaa horta dee inaad smuuj kacdoon kaloo maanta samayn kartada mudaharaadyana ma samayn karto qof waqti gelinaya ma jirto kacdoon ah in iyagu isku xirmaan kow marka hore inay marka hore iyagu isku xirmaan dabeed marka iyagu isku xirmaan ay isku dayaan ama midhihii ha ku bushkareeyaan amba ha ku bushkareeyaan inay madaxdii ay gaadhaan oo golihii wasiirada gaadhaan oo ay dabeedna golaha wasiiradu si wiigla ah bay ula kulmaan madaxweynaha fariina way gaarsiiyeen inay dabeedna usii dhex maraan golihii wasiirada in adugu waxyaabo badan bay ay dadku haday isku tagaan ay qaban karaan ma kula tahay in ay sameyn doonaan kacdoonkaas horta taas waa fikir fiican inay sameeyaan kacdoon noocaas oo ay daba galaan oo aanay wixii aanay ka aamusin oo ma taqaanaa ay si walba ula hadlaan laakiin waxa kula cabashadu halkeedii bay taagnaanaysaa waxna lagu ma bedeli karo imika hadaynu dib ugu noqono xisbiyadan imika soo wada baxay dee mid walba 30% bay ahayd inay haweenka la geliyo oo urur kasta golaha fulinta hadaan qadanayn xisbiyada maanta soo baxay saddex xisbi qaran ka iyo wadan iyo kulmiyaba de 30% dumar bay hayaan walaal qasabana laga dhigay oo dawaati barigeena ku jirnay hablaha golaha fulintana way fadhiyeen hoggaanka sare ururkana way fadhiyeen ururadan maanta tartamaya intaan ogahay horta ka hadeeyna baa ka xogayo guud wadani ma hubo oo kale reform bay sameyn doonaan wadan iyo kulmiyaba waxay noqonaysaa horta hablo badan oo waxa jira siyaasadana soo galay waxa jira dumar badan oo Soomaaliland saameyn ku leh hablaha Soomaaliland saameynta ku leh ama siyaasadda galaan ama ganacsadayaal ha noqdaan horta waa inay halka ka soo bilaabataa baash oo dadkan dama taqaanay marka horeba waxaan value-ga way ku soo laa ama systemka dawladda hore u soo arkay inay ka soo bilaabanto in fariin la gaarsiiyo madaxweynaha yes oo lagu la xisaabtamana waa mid meesha taala hablaha xisbiga wadani ku jira in dib loo isugu noqdo research laga sameeyo waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijkeena Munay waxaan ku weydiinayaa insha Allah su'aasha ugu dambeysay barnaamijka haddii aad chance ku hesho madaxweynaha qaranka Somaliland Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro oo aad weydiiso su'aal la xiriira haweenkiisa ama qaybsigooda su'aashaas maxaad ka dhigi lahayd haddii madaxweynaha aan la kulmo
كل وايه ده مركان halkan ka taaganaya markaad qofkii su'aalo weydiiso way kala duwanta de waxaan weydiin lahaa ma suurto galaysaa adigu inaad caqabadaha maanta ku hortaagan caqabadaha hortaagan waan garanaya waxa hortaagan inay reerihii ay ku yiraahdaan sidii de shalayba dhacaysay media ka daawanay hablaha qaybo kamid oo de wasiiro noqday oo habla sharaf loo mataqaanay systemka ka soo shaqeynayeen de ku cusbeen xataa nidaamka dawladda inay lahaayeen lahaa reeranimo iyo gabadhaas oo anaga nama matasho kale waliba haween ka imanay hadallada soo fooshaxni marka waxaan oran lahaa ma noqonaysaa madaxweyne in qofkii ugu horeeyay bridge-ka jabiya hablaha Somaliland 30% siiyay 5 sano ee xilka aad hayso oo bridge-ka jabiya cidna aan dhageysan taas waxay ka imanaysaa inaan cidna dhageysan go'aan si ka yimid ay noqoto oo 30% ka 30 hablood siiyay agaasimayaasha iyo hay'adaha waaweyn ee dalka waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana Nimco Fidaara oo idinkaga tagaya is arag maqal dambe oo xiiso leh